dowladda Sweden ayaa waxaa lagu eedeeyay ama lagu tuhmay in lacagaha loogu talagalay in ay ku bixiso gargaarada caalamiga ah in uu adeegsato in ay ku bixiso ama ku maareyso dadyowga qaxootiga ah ee dalkan iska dhiiba. dowladda Sweden ayaa inta badan mid lagu sheego inay aad u gacan furan tahay marka laga hadlayo kaalmada caalamiga ah. waxaana sanadkii hore ay 5 milyan oo karoon oo kamid ah kaalmadii loogu talagalay caalamka oo isticmaashay qaxootiga iska dhiibay wadankan. wadamada kale ee Europe sida Germany, France iyo Denmark ayaa iyaga laftoodu sida oo kala sameeya balse ma isticmaalaan lacagta sida u badan. wadamada kale sida Ingiriiska iyo Luxembourg ayaa iyaguna go'aansaday inay kala qaybiyaan lacagaha kaalmada caalamiga ah iyo qarashaadka qaxootiga Sweden, kuwaas oo qaasatan lagu eedeeyay in ay sawir khaldan ay ka bixinayaan kaalmada ay sheegaan inay caalamka ugu deeqaan, iyagoo sheega inay lacag badan u ballan qaadeen kaalmada caalamka balse si hoose lacagahaasi ugu isticmaala qarashaadka qaxootiga. dowladda cusub ee dalkan Sweden ee ay horkacayso Social Democratna ayaan iyadna wax badan ka bedeli doonin arrintan, iyadoo la filayo inay siyaasadan ay si isticmaalaan oo ay sanadkan oo qura adeegsadaan lacag gaaraysa ilaa 8 bilyan oo kron oo kamid ah lacagaha caalamka ee ay dowladdan Sweden u sii marayso hay'adda loo yaqaan SIDA. Sweden ayaa Soomaaliya u ballan qaaday tusaale ahaan kaalmo gaaraysa 105 milyan oo kron sanadkan 2014.